ay dareenkooda bedeli doontaa bal abwaan maasada labaad ee daawadayaasha in la wadaagayo inoo gudagal bismillaahi raxmaani raxiim maansadan waxay ka hadlaysaa uun sida ay Soomaalidu maanta dhaqan ahaan ay u dhaqanayso iyo siday u baaba'ayso iyo siday cadawgeeda u hiishanayso ee mid kastaaba cadawgiisa u hoosteeyo u bariyayo bay maansadani ka hadlaysaa waxay odhanaysaa dadii howdho hali ma dhiidhidid ma dhaadid wixii ku dhabar tiray ma dheehdid dantaada dhaawacan dhafoorka caqligu ma dhiirado rugtiyo qorigaad ku dheeshaa dhufaanta ninkaaga dhiidhiya dhammaysay raggii ku dhiqilaa dhigaaga qubtaad ku dheregtaa dhabtii rayraynka dhaxasha dhaayaa arag iyo dhegaanba qabtooy dhakadu garashada ma dhaadana dhammaan qalbigaa ku dhaawacan midnimo dhimatoo ma dhalan doonto dhabbada guush iyo dhigeed maarkaay dhawaaq liitiyo dhaliil jeceley dukaanka cuniyo dhurwaamo ogey iskeeda dushaay dhasheed qalatooy dhibteedka helaay dhulkeedna cebeey dhaliinta qurxoon dhantaali ogey dhabbada adowgaa ayaad dhaxashee maxaad dhisataa dhaqaale heshaa dhugtiyo qorigaad dhabtii jeceshoo dhisayn sharcigii ka dhegoli'id maxaad darqataa ka dherigtaa adaa dhadadii ka dhaanso isle waxay dhigatiyo dhitada daadsaay dhigaalna cebeey dhallaanka dilaay dhafoor moogani dhigii ma arkee hadmu dhigi ma arkee taariikh dhigan iyo dhigaal ma qoraay adaa dhabarka iyo dhexdaa is hayee miyaad daadaan dadii how dhalanteed damiirka dhumiyo dhegaa xidhatee hadmuu dhimirkani wixii dhacay iyo dhibtaa arkaya wasalaamu calaykum mansadaasina kulley waxaan u malaynayaa nuxurkeeda iyo waxay xambaarsan tahay iyo dee kulley bulshada iyadaa kala soo bixi doontaa abwan bal maasada saddex